wasiirada iyo xildhibaanada nagu yimi halkan jiidan hore aaga yube waa u mahadcelinaa waan salaamayaa maamulka Soomaaliland oo soo duulay fadhiyadaad ka timaadeen ku noqda dhulkan dadkii lahaa jooga iyaga annaga ku filan annagu duulaan dalkayga baan joognaa kiyaan ku dhalaan joognaa Hargeysa kuma aanu duulin buraan kuma soo duulin qaadan weyno badan baa lagu soo duulayaa iyo meel kale oo gobolka kamid ah inta markaan ka gudbo wasiirayaal waa salaamantiin ciidankii waa kan ku soo dhawaada ciidankiina weeye maantana waxay uga dhigan tahay idinkoo maartay xabadda la ridaya waa uga qiimo badan tahay aad bay ugu faraxsan yihiin ciidankiina waa kan ku soo dhawaada diyaar waxay u yihiin dalkooda difaacdaan si mugul u difaacdaan diyaar bay waxay u yihiin qorxada taagnaadaan diyaar waxay u yihiin xanta inay u taagnaadaan aad baan idinkana noo timaadeen idinka mahadcelinayna wasiirada iyo xildhibaanada ka koobnaa iyo maamulka gobolka waxaan maanta soo booqanay jiida hore ciidankii jooga difaaca kaga jiray waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ciidamada Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah wadankooda difaacooda maaragtay u jooga halka meesha aad aragtaan oo maaragtay difaac ay kaga jiraan maamulka Soomaaliland waxaan markasta aan ugu baaqaynaa inay ciidamadooda la noqdaan oo xasiloonida iyo nabadgelyada ay ilaaliyaan waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa oo u sheegaynaa in Puntland uu dulqaadkii ka dhamaaday markastana dhinaca Puntland nabadgelyada iyo xasiloonida laga ilaaliyo laakiin hadda wixii ka dambeeya inaan u dulqaadan doonin annagoo dhinacayaga aan isdifaaci doono oo dhulkayga aan difaaci doono haddii aanay ciidamadaas aan degdeg uga noqon halka ay yimaadeen oo xadgudubka ay ku soo sameeyeenna wixii ka yimaada mas'uuliyadda iyaga qaadaya halkan joogno waa xagga ugu horeysa waa meel yuba ku dhow ma aha meel la oran karayo cid bay ku duuleen waa deegaankoodii waa gobolkoodii waa dadkoodii bay dhex joogaan nuuxtaan iyo maleeshiyadu hogaaminayaan waxay mar walba jecel yihiin inay Puntland soo gardaraystaan laakiin maanta waxa halkan ku diyaar garoobay raggii jawaabaha siin jiray raggii xilliyada adkaa marka ay timaado direeska u xiran jiray raggii jawaabta waafiya bixin jiray maanta halkan jooga waan ugu nimi way mahadsan yihiin waa diyaar mar labaad iyo mar saddexaad waxay u digayaan in ciidamadaasi ku noqdaan deegaamadii ay ka yimaadeen haddii ay ku noqon waayaan ciidamadana diyaar waxay u yihiin inay jawaab waafiya ka bixiyaan dhulkoodii bay joogaan duulimaad maaha gardarro ma wadaan dulmi ma wadaan waa nin leh war gurigayga iida iyo nin leh gurigayga ma kugu soo weeraray aad iyo aad ban ciidamada daraawiishta oo aan u naqaano ciidamo soo majeestayaala oo meesha ay galaan kullay la yaqaano waxa ay sameeyaan aad ban mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu hambalyeynaya taliyaasha ciidamada nuuxtaan iyo ciidamadana soo ursadayna waxaan leeyahay halkan midhaawaydan aqoonina meel kale aad ku khaladeene kullay waxaan malanayaa wada dhuxuleed baa soo qaateen laakiin wadadii saxda ahaa way heli doontaan insha Allah taala maanta waxaan soo boqonay ciidanka soo majeestayaasha u difaacaya dalkooda runtii farxad bay noo tahay inaan ugu nimaadno iyagoo ku jira heeganka ugu dameeyey ciidankaasi waa ciidankii u dhashay gobolada iyo gaar ahaan Puntland runtiina waxa weeyaan aad iyo aad bay mahadsan yihiin ciidamada geesiyaasha ay naftooda iyo maalkooda hore inay difaacdaan dalkooda Somaliland noqon mayso inay maalin walba daandaansi ku yimaadaan deegaanada Puntland runtiina wixii mas'uuliyadda waxa qaadaya ninka hadda soo daandaansiga Somaliland ma noqon doono inuu maalin walba meel iska soo madoobeeyo soona taago Somaliland waa la yaqaanaa noqon mayso inaanu maalin dulqaadkii aan ku joogno inaan ku joogo doono